أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan saaka ku eegaynaa imtixaankii ardada 12-aadka imtixaanka fasalka 12-aad maada kamid oo la yiraahdo Scholastic Aptitude Test la yiraahdo marka imtixaankaas maadooyinka wuxuu kamid yahay 6 la qaato natural iyo social kuwa ay qaataan maadadan waxa ay tahay common oo tahay maadada marka inta badan waxay ka kooban tahay English iyo xisaab sida halka aad ka aragtaan waxa weeyaan section 1 verbal reasoning qaybta Englishka waa 30 ilaa 30 bigu joogta marka imtixaankii 2016 ee dhawaad taariikhda hadirtaan ahaa weeyaan 2024 qaybta kale ku xigta laba qaybood buu ka kooban yahay laba section koobaad waxa la yiraahdaa verbal reasoning baa la yiraahdaa qaybta kalena waxa quantitative baa la yiraahdaa reasoning quantitative waa xisaab verbal reasoning waa English marka wuxuu ka kooban yahay dhowr qaybood qayb analogy waxa la yiraahdaa analogy waa erayo isku inta badan aan arki doonaa synonyms oo kuwa isku macno ah kuwa marka analogy ah relation ba ka dhaxeeya synonyms kana waxa isku macno eray ba jumlada hore lagu dhigayaa kadibna waxa lagu xijinayaa eray kale oo choice ku jira oo la macno antonyms ba ku jira eray iska soo horjeeda halka waxa ku xiga word substitution waa eray kale iyadoo isaguna waa la mid synonyms kale ama eray bedeli kara weeyaan sentence completion waxa la yiraahdaa dhamaystirka weedha weer baa lagu dhigayaa ama jumladii baa dhamaystiraysaa eray ku habboon baa noqon sentence correction jumlada ayaa saxaysa reading comprehension waa basic analytical and logical reasoning contains certified verbal reasoning items in all together marka 35 bay ka kooban yihiin intaasoo qaybood marka 1 2 3 4 5 6 7 inta kaliya adoo 7 ama 8 weeyaan 7daas subsection weeyaan subsection kastana wuxuu leeyahay macna qayb u gooni ah qaybtan oo kale basic usoo mariyay basicka markaan ka shaqeynayna basicka sida uu sheegayo waxa weeyaan population which means total number of living in a certain area is a critical aspect of world populationku waa dadka tirada adduunka ku nool waxay noqonaysaa arrin la yaab ama arrin xaalad khatar ama xaalad saameyn leh. However, this simple number has far-reaching effects on our world. It greatly influences our society's economics and environment. When population grows too rapidly, it can create problems like shortage of food, clean water, and housing. On the flip side, a decline in population can lead to workforce shortages and economic difficulties. Striking a balance is essential. marka qaybta markii noo joogto kale waxaan akhrinaynaa jumlooyinka su'aalaha akhrinaynaa si waxaan ugu fududaato su'aasha marka koowaad waxay ku leedahay based on the information given in the passage-ka adoo ka duulaya which of the following statements is correct jumladahan ka soo socda kala saxa saasana mar walba loo shaqeeyo bas si waqtigu kugu filaado waxa oranaysa the role of community is highly constrained community-ga role-keedu iyo waxa weeye kaalinteedu is highly constrained meel marka constitution of population role macnaha waxa weeyaan ay ku taalo ma jirtaba shaqana kuma lihin
marka waa ka gudbeysa shaqo kuma waa erey isku dhex geliyay human is the sole responsibility of government to control population growth. Marka responsibility ayaa laga rabaa wuxuu leeyahay to manage population growth. Governments and community implement various strategies. They promote family plan, educate people about birth control, and create job opportunity to reduce pressure on resources. Education is a key to marka talna waxa weeyaan waa khalad iyadana kuma habboona sole responsibility of government ma waxaa ku xiga having the requisite understanding about population is what matters most. Understanding of population ka ayaa waxa ugu muhiimsan matters most. Tana shaqo kuma laha. Both government and community are responsible for controlling population. Tana sax marka dhig. Su'aasha ku xigta ee labaad waxa weeye what does the word ereyga far reaching mean? muxuu la macno yahay according to the context of passage marka loo fiiriyo muxuu la macno yahay far reaching effects on our this simple number has far reaching waa long ama wax aad u dheer weeyaan effects oo saameyn on our population. Marka tana marka la fiiriyo affecting certain areas weeyaan far reaching. taas baa sax ah waxa weeyaan maadaama numberku uu yar yahay haddana meela gooniga ku dhacaya ay ka dhiganta. waxaa ku xiga what does to make informed decision mean in the above passage sare maxay la mid tahay make informed decision waxa weeyaan sida halkaan oo kale ka muuqata to make informed decisions about the family size si loo ogaado ama looga warqabo go-aanada family size-ka. individuals weeyaan moogta waxa lala socodsiin. That means individuals make for the sake of satisfying others man based on facts and information weeyaan xaqiiqa ku salaysan. What's the theme of the passage? Themekiis waa maxay? Theme of the passage marka raadinaysa mar walba waxaa laga raadiyaa paragraphyada laga raadiyaa. halkaan oo kale population ku bilaabay which is the total number of people living in a certain area is critical aspect of our world. Marka critical population control and its disadvantages. The need to balance birth rate and death rate. Decline in population size has problems. Population growth always poses challenges. Marka population growth weeyaan dhibaato ay keenaysaa marka saa tiraahdo wuxuu ku yiri critical aspect of our world waa total number of people living in a certain area. marka impact bay leedahay. marka population growth oo la xakameyn waayo waxay keenaysaa challenges badan. marka taqniin waxa halkan kaliya sentence completion waxaa la dhamaystirayaa sentencesyada jumladaha halkan ku qoran ayaa la dhamaystirayaa. tusaale dash baa lagu siinayaa halkan jumladaha ku yaala waa inaad dhamaystirtaa oo ku dhamaystiraa erey ku habboon. saa daraadeed wuxuu instruction the following sentences 5 to 8 are incomplete. Choose the word that best completes the meaning of the sentence contextually and blacking the letter of your choice on the separate answer sheet provided. 5 ilaa 8 jumlooyin aan dhamaystirnayn ereyga ku habboon context ahaan iyo macno ahaan ayaad ku buuxinaysaa kadibna waad ka dooranaysaa. Many health professionals believe that laughter has effects on the human body as it enhances both
physical emotional health marka enhance marba enhance baa laga raacaa as enhance ereyga halka ku jiro la macnaheeyo enhancement waa hagaajin marka has erey kale oo positive halka nooga raadi waa therapeutic adverse iyo detrimental iyo harmful waxa weeyaan waa ereya aan shaqo ku lahayn saa daraadeed therapeutic weeyaan sababtoo context-ga waxaa laga hadlayaa wax faa'iido leh therapeutic baa dabcan in English-ka taqaanid ku xiran wuxuu ku leeyahay halkan sidoo kale number 6 the dash forces in western Ethiopia accompanied by the shrimps and singing of birds and fresh bees are really inspirational and forests-ka western Ethiopia laga helay oo ay ku jiraan qaylinta iyo dhidhiida shimbiraha iyo naacawda kasoo dhacaysa bariga forests waxaa la yiraahdaa waa kaymaha marka dhexdooda xaaladda laga helo waxaa really inspirational marka keeba ku habboon ereygan ku bixin karno waxaa ku habboon inaan iraahno empty tranquil abandoned intaan kale waa isku macnana ma abuurto saddex erey in isku macno desert abandoned empty waa isku macno dhowyiin weliba labadan kale waa isku macno dhowyiin marka inaan saddexda la dooran waxaa ku garanaysaa si isugu macno yihiin hal mid baa kasoo laaban lahaa marka tranquil baa macno sameynaysa oo tranquil forests kaymaha degan weeyaan shay aan deganayn markaa waxa weeyaan inspirational ma noqdeen number 7 as it contains students from diverse cultural backgrounds the class is a highly heterogeneous baa ku habboon wuxuu ku leeyahay class wuxuu ka kooban yahay dad dhaqamo kala duwan leh saa daraadeed class waa maxay heterogeneous wey in ilaahay diverse erey la mid ah oo ereygaas diverse ah macnihiisa baa la rabaa marka intaan kale la macno ma aha kana la macno number 8 to fight some of the incurable diseases the world is facing currently scientists are dash by technology to develop effective drugs wuxuu ku yiri halkan cudurrada si loola dagaallamo cudurrada aan daaweyn karin adduunku maanta adduunku waxa weeyaan dhex ordayo adduunku maanta waxa weeyaan saameynaya saynisyahanadu waxay isku dayayaan ama saynisyahanadu mid ka door marka utilizing waxay adeegsanayaan certain acid discounting overlooking ma noqonayso